wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa isaguna ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leeyihiin saraakiishani iyo tababarka aqoon kororsiga ee la siiyay. waxaan kor ugu waxaan tan ciidanka xoogaa sibaad hadda xoogaa u yara dhegdhegxsantiin waa la garanayaa hasha dhukaanta markuu dhukaanku maalinku hayo iyo maalinkii fayowdahay waa la kala garan maalinkay qandhahayso way foorsanaysaa way saasay dhahaysaa saraakiishii iyo raggii waxgaradkaa way wada fadhiyaan dhegdhacan waxaa keenaya meeshaan joogno waa hal magaalo dalkii kale dalka horta dowladda mas-uulka ciidanka mas-uulka waxaan joognaa Kismaayo 4 sano iyo wax la jiraan sii maraynaa dhulkii lagu noolaan lahaa away dhulkii madaxda lagu noqon lahaa away dhulkii mashaariicda laga fulin lahaa away raalli ahaada tuutaad qabtaan tuutanigu mar hadduu gashado waa in wax soo saarto dhulkii lagu kifaaxi lahaa ee dalku ku kala furfuran lahaa ee mas-uuliyadda lagu kala qaadan lahaa oo dhan waa maqan yahay 6 degmo gada markii laga reebo 5 degmo oo Jubbaland waxaa laga hayaa 2 degmo oo mid xog laga hayn wixii kale waa Kismaayo 4 degmo ee Jubbada dhaxana gacanta lagu maayo xooga iyo xeesha iyo waxa lagu xisaabtamayo ee Jubbaland ku xisaabtamayso waa raggiinan saraakiisha ee labisana tuutaha qaba waxaa la doonayaa cadartuna way baxaysaa nolol fiicanna waa la gaadhayaa ruux waqtigiisa ka hormarayana ma jiro ruux dagaal intuu galo waqtigiisa laga dhimayo intii laga gooyo dagaal ku dhimanayo ma jiro ruux walba waqtigiisa uu qaadanaya waxaan soo jeedin lahaa in ciidanku ay niyad fiican yeeshaan dowladdoodana ay go'aan ka sugaan shirka ku xigana haddii ilaahay raalli ka noqdo in bu'aala lagu qabto shirka ku xiga in bu'aala lagu qabto isbedel baa idan ka muuqan markaa isbedel baa kulligeen inaga wada muuqan doona dowladda madaxweyne ku-xigeenka uu fadhiyaa waxaan ka codsanaynaa Jubbaland 1 2 3 in ciidanka la siiyo haddii dhaqaale la helo 3 qaybood ciidanka in la siiyo haddii barnaamij la helo 3 ciidanka in xooga la saaro si ciidankuna wax u soo saaro ciidankuna suu wax u soo saaro dalkana ciidanku u xoreeyo in 1 2 3 in ciidanka la geliyo oo ciidanku uu niyadiisu kor u soo kacdo ogaada ruuxa noloshiisa caruurtiisu meeshay saaranta madaxweyne taa waan ka codsanaynaa madaxda adigoo madaxweyne ku-xigeenkiya madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ciidanka Jubbaland inuu soorta noqonin ciidanka Kismaayo keliya sida hadda jenaraal Dhuumaan uu sheegay uu noqdo ciidanka Jubbaland inta Jubbaland ka koobantahay ciidan ka jira ciidan xog laga hayo oo la og yahay inuu ahaado waxaan kaloo aan dowladda ku baraarujinayaa degmooyinka Jubbalandna inaan Kismaayo kaliya noqonin oo la dhihin ciidanka 100 baa la siinaya Kismaayo wax kale lagama soo saari karo dhaqaale badan bay Kismaayo leedahay dhaqaalaha Kismaayo leedahay degmooyinka Jubbaland dhaqaale badan bay leedahay dhaqaale ciidanka ku filan bay leedahay dhaqaale maamulkeeda ku filan bay leedahay 4 sano maxaa la iskugu xidhi waayay madaxweyne ku-xigeen maxaa بلد حاو نقالها يالا
iyo kan luuq yaalla iyo kan dhooble yaalla iyo kan afmadow yaalla maxaa intii laysku xidho oo ciidanka laga nooleeyo ciidanka markaas waa diyaare loo howlgelin waayo waxaan anugu soo jeedinayaa dowlad baan nahay hal magaalo keliyaana joogaynaa oona ku noolaanaynaa suuragal maaha magaalo maba qaadaba waa degmo kismaayo degmo weeyaan dhul ballaaran dhaqaalaha kale xaggee galaa degmooyinku kulli dhaqaalay leeyihiin diif baa dhaqaalo leh waan oga aniga dhoobley baa tana beled xaawo iyo doolow iyo luuq iyo ceelwaaq iyo baar dheere ma sahlana dowlad waxay ayadu lahayd aan gacanta ku haysanin ana waxaan dhihi lahaa madaxweyne ku-xigeen dowladdu waxeeda gacanta ku haysato ciidankeeda tallaabada koobaad ha siiso ciidanka cadarta ha ka biso waa la heli karaa dhaqaale ciidanka lagu hayo waa la heli karaa laakiin waa in la helo degmooyin isku wada xidhan waa in amarka halkan aad ka bixiso oo meel walba ka fulaa waa inuusan amarkiina madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada amarkoodu waa inaysan ku ekaanin labadan kontaroole kismaayo waa inay amarkooda ku ekaato halkaas waa inuu dhaqaaluhu halkaas ka imaado waa inuu maamulku halkan ka tago waa inuu barnaamijku sidaa u ballaadho gobol weyn baan haysanaa oo barwaaqo ah haddii hadda wax kale iska daaye intaan hadda joognay een kismaayo joognay allah u naxariisa rag badan baa dhinta waxaan isleeyahay haddii dagaal la qaadayo oo la socdo kolla raggaa ka badan ma dhinteen nin hadda nool un ma dhinteen waa la hubaa iyada taas muu dhiman lahaa ninka hadda nool uu noolaan lahaa haddii jamaame iyo jilib la tago jawigu sidan ma ahaadeen wuu ka bedelaan lahaa hawshaa furfurmi lahayd dhaqaalaha furfurmi lahaa tuulooyinkaad aragtay oo dhan bay ciidanku madax ka noqon lahaayeen kuwa waaweyn baa laga xukumi lahaa waxaan gaari lahayn horumar weyn waxaan warkay ku soo ururinayaa madaxweyne ku-xigeenka yaa hadda nala jooga madaxweynaha iyo madaxdana waa la gaadhsiin doonaa in jubbalandna la isku furo jubbaland way kala xidhxidhan tahay nolosheedii baa kala xidhxidhan dhaqaalaheeda baa kala xidhxidhan meel la mariya male nolosha jubbaland in la isku furo ciidankuna inuu furo jidadka jubbaland oy suuragal noqoto intaan halkan ka baxo inaan afmadow tago oon bu'aala tago oon ka tago oon baardheera tago oon wixii tegi waayo taa ciidankay saarantay iyadoo amarka dowladda uu ka qaadanayo dowladduna inay samayso inay dhaqaalaha isku sidayso oo dhaqaalaha halkaa ka soo xarooda ciidanka lagu maamulo ka halkan ka soo xarooda ciidanka lagu maamulo oon la dhihin keliya dekadib maxaa ka soo imaaday kismaayo maxaa laga helay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guul baan idiin rajaynayaa waxaan isleeyahay oon ku gebagabaynayaa qalbiga sii daaya haddiina dhimanin noolal iyo barwaaqiyo bashbash baa idiin dambayn doona muuse qalbiga sii daaya